wax macnaa ma samaynayso inaan intaan isu nimaadno wax aad aaminsan tihiin waxaan ahayn ay sheegtaan marka ugu dambaysa aniga idinku waddanka waa u simannahay dalka idinkama xiga aniga sababtu waxay tahay mustaqbalka idinka dalkan u haraayo aniga iga dambayn doona in hadda dhaqanka hore aan wax ka bedelno oo runta la isu sheego waa muhiim oo la yiraahdo Rizaarow anaga sidaas hadda qof wiilkaas u lahay waa ka xanuunsanaynaa dadka amniga lagu dhibaateynayo ama dhaawac dadka soo gaaraya ama amni darrada yani in la yiraahdo Rizaarow waxaan kugu eedeynaynaa shaqo xumadaas iyo shaqo xumadaas in la yiraahdo madaxweyne waxaan kugu eedeynayaa sidaas wasiirow sidaas waa qayb dimuqraadiyadda waa qayb qaangaarnimada ka mid ah marka qof idin ka mid ah mar raba inuu is yiraahdo Rizaaraha xoog u hadashay bilcagsi waxaan jeclaan lahaa wax walba oo qabtaan marka dambe hadaan fursad isu helno hadii ilaahay raado inaad ii sheegtaan tan koowaad horta waxaan rabaa inaan idin sheego su'aalaha ay weydiiseen oo dhan waa su'aalo aad u muhiim ah waana arrimo u baahan saacado badan in lagu lumiyo in waxaas madaxiina ay ka guuxayaan aniga waxaan aaminsanahay inay hami iyo diilo u tahay dalka in dhalinyaradii dalkan u soo kacday ay isweydiinayaan su'aalahaas annagana ay su'aalahaasna weydiinayaan waa wax wanaagsan waxyaabaha anigu aan isleeyahay dalka way ku soo kordheenay ka mid tahay oo aan hore u jirin in dhalinyaradu ay saas qayb uga yihiin dawladnimada su'aalahaas ay weydiinayaan dhaliilahaas ay qabaan madaxda ay kala meel qaanada kala gelinayaan waxaan isleeyahay iyada lafteeda horumar la gaaray waay now waxyaabo waa un arrimo si fudud looga jawaabi karo mid waa waxbarashada iyo waxaas gabdhihii wiilashan la soo kulmay saasoo kale ii weydiiyeen waxaan xafiiskayga u sheegay wasiirka waxbarashada in halkan loo soo diro uu idin yimaado ka dhalinyaro ahaan aad la fariisatiin quality waxbarashada qaybsiga scholarship-yada iyo waxaasoo su'aalo laga muujiyey dalladaha iyo waxaas doorka dawladda iyo waxyaabahaas oo dhan wasiirka waxbarashadan rabaa inuu idin yimaado maadaama aad arrimaha jaamacaddana su'aalana la ka weydiiyey taas marka halkaas aan u dayn doonaa kaliya waxaan rabaa inaan iraahdo dawladdu qorshana way leedahay qorshihiina wuu socdaa laakiin waa bilow oo heerka waxbarasho hoose iyo saraba ugu dambeynna aniga waxaan aaminsanahay haddii aan la helin waxbarasho tayo leh dalkana dhibka inaan laga saarin karin mustaqbalkana inaanan dunida la tartami karin yacni waxaa ka sii daranba haddii dhallinyaradeenna waxbarashada ay helayaan aanay la qiimo ahayn ama ka qiimo badnayn waddamada deriska dalkeenna annaga inaan u tashanno mustaqbalka dhib ay noqonaysaa jiilkii horena meesha uu ka sii baxayaa jiilka cusub oo jirana waa idinka waxaa soo haray arrimaha luqadaha iyo waxaas oo wiilkan na weydiiyey sidaa ogtihiin aniga markaan shaqada imid dikrotooyinka ugu horreeyay oo qoray waxaa ka mid ahaa in af Soomaali dalka looga shaqeeyo xataa markii golaha wasiirada ama gudahoosaadiyada shirarkeeda aan ku jiro haddii qof uu keeno warbixin af Ingiriis ku qoran waxaan iraahdaa marka af Soomaali ku soo qorto noo soo laabo aniga waxaan aaminsanahay fikir ahaan luqadeena inaan xoojino dawladnimadeena inay muhiim u tahay waa soo dhaweynaya arrinkaas laakiin burburkiina gaaray awgiis ayaa taasna ay qayb ka tahay laakiin waa talo aad u fiican oo aan ku najaxdo dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka dadka madaxda ka ah kulligeen mas'uuliyadda dalka naga wada saaran sideedana kulligeen waxaan la kula xisaabtamayaa laba arrin waxa aan dhisnay iyo waxa aan duminno dalka meeshuu ka hagaajisan yahay waa inaan sii hagaajino meeshuu ka halaysan yahayna waa inaan toosino sababta hadda halkaan u joogo waxay qaybay ka tahay inaan xiriir fiican la leenahay dawlad goboleedyada in shaqada dalka la dardar geliyo maxaa idinkaga qorshaysan waxaa nooga qorshaysan inay khasab tahay in ay dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada wada shaqeeyaan
fikirka ah marka in dadka Soomaaliyeed degmo iyo tuulo meesha ay joogaan loo wada adeego kan dawlad goboleedka madaxda ahna waa inuu sidaas u fahmaa kuwa baarlamaanka ama xukuumadda ama wasaaraha ama madaxweynaha magaala madaxda iyo dawladda federaalka ahna waa sidaas inuu fahmaan marka ugu dambaysa su'aalaha la rabo in la isweydiiyo waxa ay tahay maxaa la rabaa inay isku keenahayaan waxa hadda isku keenahaya ma leeyihiin xarig adag oo isku keena celin kara waxaasna waa shuruucda dalka u degsan waana u imaan doonaa ka hadalkeeda waxaa soo haray maxaa amniga laga qaban karaa waxaan rabaa marka inaan idiin sheego fikirkayga ku aadan horta dalka amnigiisa in wax laga qabto ma ahan amniga keliya in wax laga qabto waa in amnigiisa wax laga qabto waa in dhaqaalihiisa wax laga qabto waa in siyaasaddiisa wax laga qabto waa in arrimahiisa bulshada wax laga qabto amnigu in dhalinyarada ay baagamuudo tahay amni darrada ay qayb ka mid tahay in musuqmaasuq uu jiro amni darrada ay qayb ka mid tahay in qabyaalad ay jirto amni darrada ay qayb ka mid tahay in nin jeclaysi waddanka uu ka shaqeeyo sida wiilkan uu sheegayay amni darrada ay qayb ka tahay maxaa marka annagu hadda aan samaynay horta waxaan soo dhaweynayaa fikirka ah shabaabka haddii aan lala dagaalamin lagama adkaanayo in lala dagaalamo khasab waayo dagaalka dawladdu ay shabaabka kula jirto waxaa laga yaabaa inay dhibtaa hadda in la dareemo waayo dagaalka weli lama soo afjarin laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego waxyaaba soo socda dawladdeenna hadda jirta waxaa laga yaabaa qaabkay u shaqayso inay sida hore ka duwan tahay sababtoo waxaa dib u habeyn aan ku wadnaa ciidanka dalka waxaan dib u habeyn ku wadnaa dhaqaalaha waxaan dib u habeyn ku wadnaa arrimaha siyaasadda waxaan dib u habeyn ku wadnaa arrimaha horumarinta bulshada dalka ciidanka haddaan kaaga bilaabo hadda ciidanka dawladda federaalka ay leedahay waxay nagu qaadatay ku dhowaad hadda 2 sano in kulligiis la soo tiriyo askari walba biometric lisuul gacanta loo saaro bangi loo furo la og yahay tirada saxda inta ay tahay in la ogaado meelaha ay kala joogaan hogaamada militariga hadda waxaan ku bilownay hogaanka saadka hogaanka maaliyadda hogaanka ciidanka waa saddexda ugu muhiimsan oo ciidanka laga maamulo saddex wiil oo midna 26 sano jira labana ay 30 jiraan u dhiibay arrin kale aan rabaa inaan kugu daro waxaa loogu dhiibay imtixaanan ka qaadnay qoraal ah aniga ra'iisul wasaaraha idin hor fadhiya ayaa kulligood interviewga ka qaaday saddexdii ugu mudneed ayaan u dhiibnay eeg in ra'iisul wasaaraha Soomaaliyeed intuu meel fariisto uu interview dadkaas ka qaadayo macnaheedu waxaan rabaa inaan idiin sheego waxay ka turjumaysaa godka aan ku dhacnay intuu la eg yahay laakiin lagama xishoon karo in laga soo saaro eeg marka in ciidamada la tiriyay in mushaarkooda hadda kulli bangi loogu shubo aan cid loo marsiinin akoonkooda ugu dhacdo in meelaha ay joogaan la og yahay in inta naga maqan la og yahay in la tiriyo qalabka ay haystaan in hadda ay ku xigteen xerooyin loo sameeyo iyo meelihii la dejin lahaa waxaan rabaa inaan kugu bishaareeyo waa shaqo aad u dhib badan aan loo jeedin laakiin socota waqti qaadanaysa inay meel soo gaarto macnaheedu waxay tahay qaabkii ahaa debdemisnimada waddanka looga shaqaynayo in lagu bedelo waayo qorshe shaqeeya inuu jiro waa run marka dawladda inaad dhaliishiin waa soo dhaweynaya laakiin waxaan rabaa idinkoo dhaliilayana inaad og tihiin xaqiiqda waddanka ka jirta iyo waxa loo baahan yahay in la qabto ciidankaas isaga in bil walba mushaar la siiyo iyo qof walboo dawladda u shaqeeya maalintii aan shaqada bilowna aniga madaxweynahayga ilaa hadda qof walboo dalka u shaqeeya mushaara la siiya
waa maxay sababta ay u dhacday horena aanay ugu dhici jirin sababtoo ah waxaan bilownay inaan dib habeen ku samayno arrimaha dhaqaalaha haddii hadda aad la xiriirto IMF-ta waxay ku leedahay 30 sano la soo dhaafay wadamada dhibka ka soo kabsanayay oo aan la dhaqanay si dib habeen ama reform loogu sameeyo dhaqaalahooda kii ugu fiicnaa oo la shaqeynay Soomaaliya inaan u dhownahay marka in adduunyadu ay hadda u soo dhawaato inay ka munaaqashoodaan inay naga caawiyaan deynta in la ka cafiyo waxa waaye dadaal aan soo gelino xoog leh in marka dhaqaalaha kor loo qaado kobaca in musuqmaasuqa la dagaalamo in nidaam dhaqaale oo shaqeynaya la helo waxa soo dhami waxa waaye waa shuruudo adag oo xanuun ah in la marayo ugu dambeyntii si shaqo loo abuuro ama qof uu u yimaado Kismaayo raba 500 milyan inuu maal gashado meel dalka in la soo gaarsiiyo waa meeshaas shortcut ma laha luuq la soo maro ma laha meeshaas dariiq dheer ay rabtaa xanuun ah in la maro oo waqti qaadanayo oo subaxii la soo kacay laabinka sarada dhaxal la shaqeynayo oo ina adiga jeebkaada ka dareentid ama shaqadaada aad ka dareentid ay waqti qaadanayso raashu ay taa marka inta ka horeysa ma isdhiibna ma niyad jabna mise waxaan aqbalnaa xaqiiqda saxda oo aan niraahdaa warku hadda joogan aan la xisaabtano mustaqbalkana aan helna qaabka aan kula wareegi lahayn annaga dhalinyaradii anagu abaabula marka aan soo gaarno meesha aan ka rabno arrimaha dhaqaalaha kobciisa iyo la falgelidda hay'adaha dhaqaalaha adduunka iyo deyn afiskaba waxaan rabaa inaan idin sheego Soomaaliya cusub bilaabanaysa hadda waddan miisaaniyadiisa 300 milyan tahay isagoo dhan waxbarasho iyo caafimaad iyo caruur iyo mustaqbal ma awoodo inuu dhiso inaan aqbalna waa marka taas inaan wax ka bedelno si aan uga bedelno dariiqay u baahan tahay in la maro waxaan fiscal discipline aan leenahay u baahannahay central bank shaqeynay wasaaradda maaliyadda shaqeynay IMF iyo World Bank iyo African Development Bank Islamic Development Bank iyo adduunyada horumarinadooda dhaqaale oo dhan oo nagu xiran waxaan u baahannahay qofkii raba $1 bilyan dalka inuu maal gashado in weelku uu ku maal gasho lahay oo shuruucdii qofkaas ilaalinaysay uu yaalo shaqo u baahan aasaaska in laga dhiso si 100 ama 200 sano ay u tartaa uu dalku u baahan yahay marka oo xoogaa ka yara weyn fadhi ku dirarka caadiga ah oo xamar yaal waxaa kaloo ku soo celceliseen arrimaha siyaasadda doorasho sidee ku dhacaysaa doorasho waxay ku dhacaysaa horta kow in lagu heshiiyo waddankiin asxaab siyaasadeed laga hirgeliyo nidaam doorasho loo wada dhan yahay in laga hirgeliyo awood qaybsi dhab ah oo shaqada dawlad goboleed dawladda federaalku aanay isugu qasmin in laga hirgeliyo nidaam miisaaniyadeed oo isku haya dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada in laga hirgeliyo nooca dawladeed oo dalku yeelanayo mustaqbalka oo dastuurka lagu qori doono in laga hirgeliyo waxaasoo dhan waa shaqo socota oo aan bilownay oo dhammaystirka ku dhow oo aniga hadafkayga iyo madaxweynaheena uu yahay inaan dhammaystirno ugu yaraan si kuwa annaga nooga dambeeya aanay u marin dhibka annaga aan soo marin ugu dambeyntii isla iyada in wax la dhiso hadda waxaa ka dhib badan in laga aqbalo in la bedelo dhaqankii hore in dadkaada iyo duniduba ay ku gartaan in dalku uu yahay dalkii hore ka duwan in madaxda waddanku ay ku hore ka duwan yihiin ay u khidmeynayaan dalkooda waa ogahay khalad uu dhacayaa ama dhaliil waa imaanaysaa muhiimadda laakiin waxay tahay siyaasadda dawladdeena ay hadda ku shaqayso waxay ku salaysan tahay maxaa u roon Soomaaliya mustaqbalka fog jiritaanka dalka
xorriyadda dalka midnimada dalka yaa dhaqaalaha waddanka qaybteeda mas'uul ka noqonaya ama sidee cadaalad loogu qaybiyaa sideen u soo gaarnaa mustaqbalka in adiga iyo gabadhaana u simantihiin shaqada soo baxda waxaasoo dhan waxay kalifaysaa nidaam in la sameeyo nidaamkaas marka waxaa nagu jira dad badan oo laga yaabo sida hadda inay ugu badiso meesha marka aan rabo aniga idinkiina isaga soo dhawaano waxay tahay aniga hadda waa joogaa wasaarihiina yanahay 10 sano ama 20 sano kadib ama 15 sano ama 10 sano soo socda ama 5 sano soo socda waxa rabtiin waa dhigi kartiin farmaajo saasoo ama khayr saasoo aha laakiin Soomaaliya wax badan taramayso Soomaaliya waxa wax taraya dhalinyaro Soomaaliyeed oo abaabulan oo midaysan annagana iska kaandhicisa mustaqbalkana fiiriya dadka farakutiriska ah oo siyaasaddu ay gacanta ugu jirtay ku dhawaad 30 sano la soo dhaafayna la xisaabtan macnaheedu marka ay tahay sida adiga uga xanuunsanaysid wiilka ama gabadha dhaawacantay oo boqol jibaaran uga xanuunsanayo aniga waayo ugu yaraan 18 ama 20 saacadood aan shaqeeyo aniga maalintii ugu yaraato 18 saacadood waxa laga yaabaa adiga inaadan arki karin taas laakiin marka ugu dambaysa aniga hadafkaygu waxa uu yahay marka aan qolkayga soo xirto qalbigaygu inuu dareemayo wax walba aan awoodo inaan isku dayo si dalkan u hagaajiyo haddii kulligeen aan saan wada noqono waliba idinkoo iga dhalin yar oo iga maskax badan rajadu waa fiican tahay ugu dambeyntii marar baan waxaan geli doonaa in la yiraahdo xaaladda dalku sidee bay ogtahay ma qurxan tahay ma foolxun tahay habeenna waa la farxayaa habeenna la farxi maayo haddaa rabtaan farxad waarta inaan ku noolaano xanuunka in loo adkaystay rabtaa go'aanka halkaan inaan laga gaarin halkaas in laga gaaro waa maalintii